ciidamada ilaalada xeebaha dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa howlgallo kala duwan oo ay ka fuliyeen xeebaha dhinaca bari ee gobolka Saaxil waxay ku soo qabteen in ka badan ilaa 30 doonyood oo si sharci darro ah uga kalluumaysanaya xeebaha bari ee gobolka Saaxil iyo sidoo kale ku dhawaad ilaa 80 qof oo watay doonyahaasi oo u dhashay wadanka Yemen. doonyahan ayaa ciidanku markii ay soo qabteen waxay keeneen xarunta ciidanka ilaalada xeebaha ee magaalada Berbera. taliyaha guud ee ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland Sarreeye Guuto Maxamed Faarax Xiiran ayaa nooga warramay howlgalkan iyo sidii uu dhacay waliba kalluumaysatada sharci darrada ah ee ay ku soo qabteen iyo howlgallada ay ciidanku ka wadaan xeebaha bariga iyo galbeedka dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland. taliyaha arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri waxaan ku gelayay waxbarashada socotay dhalinyaradii shaqada qaranka iyo ciidankii hore si ay isula qabsan lahaayeen aadii iyo kaabta barka waday muddo 3 wiiga meel fiican buu marayay dabad waxaan go'aan ku gaadhay inaan kormeer ugu baxo bariga kormeerka aan ugu baxnay xildiraad markii ku dhaweeyeen bal loo kulanay doonyo badan oo cadani qolada Carabta ah oo ogtiin cadan way duntay waxaanay diinin badda inay ka kalluumaysan waxaanay diinin doonyaha waan soo kaxaynay xalay labadii baan u keenay waa ay joogaan si ay dhidaadan oo la balansanahay gacanta ku gelin doonaa waxa weeye ka taliyahan khalad badan baa ay muuqda sharcigan marin doonaa khaladka waxa weeye sharciga lagu toosiyo loo baahan yahay anagoo noqon meeno man fadhida waxa weeye wala si socon doonaa waa la hayaa daweelkii lagu baari lahaa wax lagu baari lahaa insha Allah waxa weeye waa laga safayn doonaa nimankan bartay inay mataqaana badda boobaan dhawaanna waan laga sii lactagnay haddana waan u baxnay wareegan oolahaas uu socon doonaa baddu waxa weeye waa bad dheer oo ciidanka ka xoog badan yeelkeeda waxa weeye nin walba waxa ku socdaa waa la dadaalayaa waxaan jecelahay hadii la ka dhigo in badda ka dhigno sanadkan cusub kaleer laga dhigo oo aan wax dambe ka dhicin insha Allah taliya doonyahan imka qabateen kalluumaysatada sharci darrada ilaa intee ka kooban yihiin dad inta lagna way saaran yihiin deeta shaqo baa saaran 12 waa kuwa mataqaana talaagada leh 10 kale 12 kale waa kuwa u shaqeeyay badda dhexda istaagayaan maca talaagada kuwa yarba u soo shaqeynaya marka waa 22 doonyood weeye marka sharciga waa fujin doonaa dilaa ka dhigo marka saasa insha Allah bay ku dhamaan doonto ku cadaato in sharci darro ku kalluumaysanayeen doonyahaasi aa soo qabateen howlgalkan ay sameeyeen shalayto sidee baa idinku yeelaysan ciidanaha wallahi maxkamaddu man ku go'ayna dalku sharci buu leeyahay maxkamadan marsiin doonaa si ay dhideen iyo biliiska u yeeri doonaa way baari doonaan waan horgeyn doonaa ka baxbada waan horgeyn doonaa dilaa ka dhigo maxkamadan horgeyn doonaa oday weyn baa waliba shaqada garanaya wax badan oo khalad ka muuqda laakiin hor dhici maayo sharcigan horgeyn doonaa insha Allah inta badan taliya adigu howlgallada badda adigoo taliyihii guud ee ciidanka ah ee siyaasadda guud ee ciidanka ka mas'uulka ah adiga inta badan galaba badda oo doonyahan kalluumaystada iyo arrimaha soo qabta saraakiishada ku qaabilsan saldhigyada kala duwan miyad ku aamin weyday adigu taliyaha wallahi ma ugu kalsoonahay waxa weeye maadaama fiilkayga markii hore bileeska laftiga inaan la qayb qaato la galo badda oo hogaamiyo iyaga la soo hogaamiya waan hogaamiyaa laakiin nimanka badda aad u yaqaana waa iyaga laakiin ragay ma diidin oo waxa weeye rag iska cararaya mihi laakiin waxa la hogaamiyo waan ugu horeeyaa dadka taasa keenaysa in safarada badda miya sii wadaysaane ku ilaalinaysa insha Allah dilaa ka dhigo insha Allah aad iyo aad laakiin waanu sheegin doonin saan shal dusha uga dhacna